dadka awdir waa lahaaya koolkiis waa lahaaya waxa asa isku keenay war familnimo way soo dhamaatay luuqa iga soo qaba hadhow markaa ka dhamaato dadkan cadaanta maqashiin hala wareejiyaan adduunka dhan sawirkiisa cadaanta codkiisa wareejiyaan walaal codka daar leecad codkiisa daar waxba kama qaba karno dadku cadeen usas dhahay hayeeba amuskatu dhiigay dhaqsin ku damaayo faaiisa aawayad ma soo qabsato gabadha lacagta bixisaa soo qabsina waa wacaasuka ninkaas wixii ku dhici lahaa waatana gabadhii markaa muqdisho ka soo baxay lacagta u dhiibtay oo soo dirtay cadeynta wax dhan waa nila tusaa Rosalind soo qabso walaashay waa Rosalinda gabadha walaashay lacagta u dhiibtay $5,000 soo fasax markaa dhahay wixii oo dhan waa lahaa ma fahantaa adduunka cadeena lagu ka dhintaa ani markaa wax sameynaa qofka cadeena meel ka dhigtaan ku gaareen amba ay dhaar ku mareen oo umada ilaahay og tahay oo cadeynaya marxaati loo leeyahay in ay ku hanjabeen in labadeedaba dili doonaan hadayninka Soomaaliyeed waan iskuursanay hadaan iskuursanay maxay xaafadayadii baan isku keediiday ninkan isma geeniyo isku diimin isku dhaqan manin marka bacdina kama nimidey walaalkayga hooyaday ka dimidey waan raacay hooyo walaalkay baa dareemay waan raacay maan diidin marsaxaadkii waan soo noqday waan sidii baan inankii isku guursanay maxabadii baadu saldhigii naga soo dacweeyeen saldhig marka laga soo dacweeyay maxabadii baa subaxina la geeyay anaga inta la xidhay jeelka habeenimada la geeyay marka la dhaween dilayaan ayaana la geeyay maxabada subaxnimadii maxabada waxa tirdaadu sidii daacadnimo hadasho ninkaagii iska raac balan wada waxay u qaadan xaafadayda inaan ninkayga aynana diini ayna wixiina uu yahay dad wax ka talanayo la isku dhaqan manin iyo isku diin manin isku dhaqan iyo isku diin ma waano hableena Soomaaliyeed maanta gaal bay guursanayaan oo gaal cad xabashi baa qaba haddii aan gabadhii isguursanay reerkoogii ma ay soo ogolaan arrinkaas guurka laba jeer hore way igu diideen markaa ay yiraahdeen ma geeyna sidaan baa ma garanaysaa ma guursanaysid laba jeer hore way iga kaxeeyeen markii saddexaad bay ma garanaysaa aan guursaday anigoo labadeedu de iskaashanayna arrinkaas la kaashanaa markii saddexaad ma garanaysaa guursaday haddii aan guursaday anigu halkan baan gurigan baan imday ku leedahay ninkaas lagaaga qaadayaa laakiin midda sameynaysid waxay tahay abbaay macaan kaliya waa ku bariyaa ina ifaanti isku day noqo gabadhii ugu horeysay ee ka roonaata narag intaas hadal ugu soo xiraa bismillah faatixada qaado adiga iyo Soomaaliba marka waxaan ilaayahay CK iyo Soomaaliba waxaan ilaayahay aniga iyo gabadhan waa horta isku daalnay muddaan isgaraacaynay ma fahanti aniga gabadhan maadaama isku daalnay inaad si sax noogu kala gar qaadaan oo asna gartiisa weydiisaan anna aad i weydiisaan soo ma fiicno mase hal gabar bis aad ku wareysanaysiin gabadha kale ma wareysanaysiin gartu leeyahay waa maxay fiiri abbaay fiiri mar kale aan kugu celinaa adiga gartu uu leeyahay asaga la siinayo waa maxay waxaan ku yiri dadka asaga uu ka dhashay ayaa markii uu video u daaqad soo fuulo uu ku soo caayo commentiga dadku ka dhashaa waxay u wada qorayaan war hush hana nabin annaga dad ku xigne hana ceebaanino naagta ilmay ku heesay ma gala qaadinayso jooji iyo gugasheeda ka sheekeynayso ifahan abaayo yani fiiri ada hadda waxa rabtaa ina aragtid ninka ina ka guuleysatay yaa waa ka guuleysatay nin qabiilka asaga uu ka dhashay waliba laftu hoos uga dhashay ee commentiga ku leeyihiin warush hana ceebaan fadlan noo saarso bisara bilaa khayra ku soo wax degdeg ku farxday ilaahay ku soo bir xaqsoortii fi anna warad degdeg oo hadda soo dhacay ayaa ka dabageeyay warkii horeba waa la soo dhaafay inaantay misis waraxayd oo liicata walaalkeedu ka dhacay lacag dhan 5,000 oo lacagta Mareykanka ah dhigtiya dhamanka isku dhigay afkii baa suuqa qaba liicata walaalkeed baa tuuq noqday oo miswar lacag 5,000 oo lacagta Mareykanka ah ka dhacay oo cadeymihii ay soo bandhigtay liicata walaalkeed inantaasi macee bay daba dhigtay waa maxay arrintan afsalax ku dhaga ah soo baxday inantaas oo aad u barooranaysa oo xanaaqsan ayaa sheegtay waxa weeyaan in liicata walaalkeed oo lacagtaas ka dhacay oo waxa weeyaan uu isdabamarin ku sameeyay inantan oo xanaaqsan ayaa muuqaal toosa soo qashay sidaana sheegtay war kaloo la yaab leh ayaan ku haya gabadh reer Hargeysa ah oo al-isaaqiye ah ayaa guursatay nin gabooye ah maxaa dhacay gabadhan oo sheegtay inay ninkaas waxa weey nolosha u hortay oo dooqeeda u noqday oo wiilka reer Hargeysa ee gabooyaha ah ayadu calbatay oo la baxsaday
oo markii uu la baxsaduu la tegay magaalo Hargeysa aad uga yara fogna uu soo hadlay uu gabadhaasan aaba guursaday oo aabaheed reerka u tegay reerka isku kaceen inantii reer Hargeysa oo gabadh reer Hargeysa ah oo adaga arkaya afkay furatay markii dambe muuqaal baa la soo dubay horta meherku uu dhacay oo gabadhii way isguursadeen reerkoodina inantii bay soo hanshabeen waxay ku yiraahdeen gabigaaga ma waan ku dilaynaaba halkaan kugu arko walaalkeed baa ku yiri halkaan kugu arko qoorta ayaan ku dheeraynaya aabaheedna sidaas oo kale reerkoodana waxay ballan qaadeen inay ninkaba dab suri doonaanba inantii oo muuqaal soo duubtay oo cabanaysa ayaa muuqaalkaas soo duubtay oo sheegtay inuu ninkaasi nin muxsina yahay oo aanu dhaqankeedu ay haysato iyo dhaqanka ay isagu haysto aanay waxba ku kala sarreyn oo aanay kala sarreyn lahayn waxay sheegtay gabadhaas inay gabdho badan oo Soomaaliyeed ay guursadeen niman kala duwan oo cadaan iyo cid kasta leh oo qaarkood aanay isku dhaqanba ahayn waana la hayaa taas dadkaas kulley adduunkan markaas u eegto dadku waa dhaqaala la socod baan maraynaya sababtoo ah gabdho waxa shira Soomaaliyeed guursadeen niman cadaan oo hantiilayaal oo dhaqankoodii haysto aan waxba iska bedelin gabadhaas reerahay ka soo sheedena lacag ku horay 100,000 madaxa kor haday doonto u dhaafaysa aanay reerahaasina wax hadara markii lacagaha faraha badan loo shubay aanay soo oran balse waxay tiri inantaasi anigoo gabadhaas dhaqanka leh oo aan isku dhaqanahay wiilka walaalka ah oo aan afkanahay oo aan isku magaalada shoogno maxaan ku kala duwanahay ka aan isku qabiilka nahay isagu waxay tiri isku mid bay maanta yihiin mana kala soocayo waxay ku dhaaratay gabadhaas inaanay wax weeye nolosheeda aanay qof kala siin doonin wax kasta oo dhacana ay geeri ka xigto inay ninka gabooyaha ah wax weeye nin kala siisato haddaan dib ugu noqono Muqdisho 2019 waxa ka dhacay in wiil yar oo dhalinyaro ah markii madaxweyne Farmaajo uu haystay xilka in waxa weeyaan uu guursaday gabadh adoo qabiilada dega Muqdisho wiilkuna uu gabooye ah waxaan ognahay oo shaahid u nahay in wiilka adeerkii dab la suray oo wadooyinka Muqdisho mid ka mid ah lagu ololiyay sababa cunsurinimo awgeed la xiriirna sidaana waxa weeyaan qabiilka gabooye oo dulmana ugu noqday dhulal ka mid ah dhulalka Soomaalida marka inantaasi waxay leedahay wax kasta oo dhaca anigu maanta ma yeelayo wadaga arkay sida uu hadlaysay quruxda badan waana run waxa weeyaan gabadhaas aad ka u cabanaysa murugta ka muuqata ay leedahay qofka nolosha aan la qaybsaday ee walaalkay in reerkaygu ii diidaan aad baan uga xumahay waana wax tusaale u noqonaysa in cunsurinimo ay jirto lagu dulmo qabiilka gabooye meelo badan oo dhulalka Soomaalidu ay degta ka mid ah taasina been maaha oo weyn ognahay in hoos ahaan ay taas u jirto inagoo aan waxbana ka gabaneyn wararka ayaa farqayn doona waxaan ku leeyahay bira dhamaadira socod afsalax ku dhig hadaad ma qashirtay inantii misuwalo muuqaal toosa soo qashay ma ogaan bay u ceebeynaysaa ma ogaan bay u bahdilaysaa liicata walaalkeed oo ay ku sheegtay inuu dhacaawe yahay oo lacag fara badan ka dhacay oo 5,000 oo abu bidaarka ah gabadhaasi waxay leedahay cadaymihii waan haya codad la soo duubay oo dhageystay oo aan anu ma aqaano walaalkeed codkeeda balse ay dad lacag ay kala dirsanayaan baa jira inantaas waxay tiri maanta badbaad isku qashay walaalkayo hadaad arki jirtay dumar lacag laga dhacay anigu ma ihi kuwaas balse waxaan soo bandhigi doonaa bay tiri washigaaga iyo sidii aad lacagaha iga dhacday iyo muuqaaladii tooska ahaa in ku wada hadlaynay war cusub baa soo socda marka aan ka dabageeyo warka ugu wanaagsan inantii malyuun oo waxa weeye sidaa iska soo taagtay maanta malyuun rooble walaalkan siikay xaray waxa daawanaysay 11,000 oo qof oo madaxa ka shar Soomaali weyn oo dhan xaray daawanaysay malyuun rooble walaasheen waxa halkaa loogu hambaliyay go'aanka geesinimada leh ay qaadatay inantaas ninkaas markay isguursadeen ama aanay isguursan bameynaan aqoon dhakada laga yaqaan
dumar badan oo Soomaaliyeed ku xidhnaa gabadhaasi waxay soo taban jirtay muuqaalo bareeda bulshada ay ku soo taban jirtay oo heel dumar ay ula magac baxday balse markay ninka ay isguursadeen weliba ay isfureen markay isguursadeen muuqaalo ay soo wada duubeen baa la isku bartay iyaga oo waxa weeyaan dadka arbaaha shiray mararka qaar wax qasaba way dhaceen inantaasi maanta xalay cimaamada lagu tuuray waxayna qaadatay go'aan geesinimo leh oo ah in aanay halku taagan yahay aanay ka soo wareegi doonin hadal dambe oo hadalladii xunxumaa ee dhagaheena wasakheynayana aan laga maqli doonin waana lagu taageeray dad fara badan ayaa xalay u hambaliyey giftiya fara badan u diray waana geesiyad qaadatay go'aan geesinimo waxaana ka dambeeyay walaalkiisii oo isaguna ah haliyay iskarab taagay gabadhaas weliba 30 daqiiqo dheeraadana si giftiya loogu diro ugu dambeyn sidaas ay hawshaas